السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaanteen waxaan leenahay xiriiro aan lahaano xiriiro noqaasa ama xiriirada bulshada midda qoyska midda saaxiibada midda la dhaqanka bulshada oo ah inaan bulshada la macaamilo si wanaagsan hab ganacsi iyo hab kaleba xiriirka galgacalka ku dhisan waxaa burburiyay saddex shay oo kaliya saddexda shay ee burburiya waa saddex aad ugu badan bulshadeena saddexdu waxay kala yihiin qalad badan been badan iyo dan la'aan kow aan ku hormarno midda koowaad qalad badan inaad noqotid mar walba qof u jooga inuu mar walba qalad sameeyo mar walbana marmarsiyo keeno qaladkaada oo bato waxay soo dedejisaa inaad weysid in qofkii ku jeclaa ama qofkii kugu kalsoonaa laabtiisa aad ku sii nagaatid waxaa macquul ah in qofkaas si lama filaana laabtiisa aad uga baxdid ama uu adiga dhanba ku dhibsado been badan dunida oo dhan waxa ay nacab tahay qofka beenlowga ah dhulka iyo cirka iyo waxa ku dhex nool oo dhan ayaa nacab ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuu ka digay beenta nabigeennina wuu ka digay beentaada oo badata waxay soo dedejisaa burburka noloshaada qayb weyn oo ka mida iyo dan la-aantaada oo badata oo aad tahay qof aan danaysan shaqaysan waxbaran oo qof meel ku mashquulsan aadan ahayn waxay soo dedejisaa iyaduna inaad weysid qofkii aad jecleed dadkii aad jecleed bulshadaadii waayo qofka dan la-aanta ahi asigu mar walba waxa uu la yimaadaa waxaan wanaagsanayn waayo noloshu sideedaba waxay tahay shaqo sabab haddii jirto taasi waa gooni laakiin dan la-aan micnaha inaad dan la-aanta ayaa laga hadlayaa dan la-aantaada waxay keentaa burburka noloshaada 100%. haddaba waxaan rajeynayaa inaad iska ilaali doontid saddexdan qalad oo burburiya mustaqbalka ama galgacalka aad ka helaysay bulshada ama qofkaad jeceshahay lamaankaaga ama ehelkaaga ama waalidkaaga ama asxaabtaada waxay rabtaa noqoto waxaan rajeynayaa inaad iska ilaali doontid qalad badan been badan iyo dan la-aan waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad wax ka faa'iidi fadlan haddaan ugu cusubtahay nuu soo biir mahadsanidin